coronavirus maxaad ka ogtahay xanuunkani baqdinta ku riday adduunka isla mar ahaantaana maalinta ka dambaysa ku sii faafaya caalamka maxaad ka ogtahay khatarihiisa waxyaabaha lagu garto qofka qaba xanuunkani waxa uu ka bilaabmay halka China waa magaalada oo gaar ahaan mid ka mid ah suuqyada lagu iibiyo hilibka eyda masaska iyo waliba fiidmeerta fayraskan waxa loo aanaynayaa inay dadku ka qaadeen cunida hilibka fiidmeerta bishii December ee la soo dhaafay waxa bilaabmay hanjabaadka fayraska corona kaasi oo isaga gudbay qof ilaa iyo qof kale si yar oo fudud Li Wenlian oo ahaa doctor qaabilsan daaweynta indhaha ayaa 21 bishii December uga digay shacabka reer China inuu jiro fayras cusub oo eg fayraska SARS kaasi oo dunida halis badan ku ah qaab dhismeedkiisuna uu shabaho taajka koronka waa barta laga keenay magaca corona haddaba dawladda ayaa hadalka doctorka ku tilmaamtay mid iska hadal ah ama aflagaada dawladeed iyadoo looga digay inuu joojiyo hadalkaasi haddii kala la xidhi doono balse kaliska ayaa ahaa in xaqiiqda hadalka doctorku soo baxday maalmo yarun kadib markii ay xanuunka u geeriyoodeen 2 qof haddaba waa maxay calaamadaha lagu garto fayraska ka naxsaday adduunka isla markaana dawlado badan ay la dhacayeen daaweyntiisa qofka qaba cudurkan lagama dareemayo muddo 14 maalmood waana tasahashay in qofka laga shakiyin astaamaha ugu horeeyay ee qofka ka muuqanaya ayaa inuu qofku yeesho qufac hindhiso iyo xumad sidii hargabkii oo kale kadibna uu qofku gaba awoodda isagoo dirqa ku noqonaysa neefsashadu iskani waa mid u daran dadka waaweyn ee aan iska difaaci karin iyo waliba dadka balwadaha leh iyo sidoo kale dadka u hooseeya difaaca jirkoodu amaba hore u lahaa xanuuno heerka dhimashada dadka u dhimanaya fayraskan ayaa kor u sii kacaysa caalamka siiba China oo goobta uu ka bilaabmay cudurkani maadaama uu cudurkan yahay mid hawada ku faafa dhammaanba waxa bandoo laga dhigay magaalooyinka waaweyn ee China waxa istaagay dhammaanba safaradii cirka dhulka iyo badda waxa albaabada la isugu laabay goobihii shaqada iyo waxbarashada waxa istaagay ganacsigii iyo waliba dalxiiskii dadku ku iman jireen China dadka waxa looga digay inay ka soo baxaan guryahooda iyadoo magaalooyinka qaarna aad moodidba in laga guuray fayraskani ayaa ka naxsaday adduunka in ka badan malaayiin dhakhaatiir oo caalamka ayaa tartan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen tallaal ama daawo ka dhan ah fayraskani 2460 qof ayaa la diiwaan geliyay dhimashada isbuucan China oo qura 26 qof oo dawladaha Carabeed ah iyo waliba 8 dhimasho ah oo dalka Iiraan ah 13 qof ayaa laga helay dalka Imaaraadka 5 qof ayaa laga helay dalka Lubnaan tirada ayaa kor u sii kacaysa iyadoo dalalka Talyaani iyo Kuuriyada Waqooyi ay noqdeen kuwa ugu badan ee ku soo xiga dalka China dhanka saameynta cudurkani wadamada bariga dhaxana dalka Iiraan ayaa noqday dalka ugu badan ee ay dadka ku nool qabaan fayraska corona Brazil, Ingiriiska, Switzerland, Nigeria, Tunisia iyo waliba America ayaa laga soo sheegay xaalado cusub oo cudurkani uu sababay